wafdi uu hogaaminayay wasiirka warfaafinta Mustafa Sheekh Cali Dhuxulo ayaa dhawaan safar gaaban ku yimid wadankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. wasiirka ayaa waxa uu booqasho ku yimid stuudiyaha telefishinka qaranka uu ku leeyahay magaalada London. waxa uuna kulan kula qaatay qaar kamid ah fanaaniintii hore ee hobolada Waaberi. fanaaniintii kulanka la qaadatay ayaa waxa ay ku amaaneen sida uu u taxgeliyo fanaaniinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. hadaladoodiina waxa kamid ahaa sida tan: halkan waxaa sharaf weyn inoo ah wasiirkayni warfaafinta oo Mustafa Dhuxulo oo maanta noo yimid London oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay imaashadiisa. ayaamahan aan sugaynay ayaa maanta nala jooga. waxaan leenahay maxaali wasiir soo dhawow. waa fanaaniintaadii oo ku hoos imaanaysay oo qurbaha joogaan. waxaan leenahay wasiirkayna warfaafinta waxay ka muuqataa markaan kula soconnay anagoo qurbo joogta dibadda aan joognay inaad tihid runtii ilaa burburkii ilaa hadda wasiirka oo fanaaniinta ku xiran oo aan aragnay mutawaadaca ah oo bulsho ah. aan arki jirnay wasaaradii hore ee warfaafinta wasiirkii oon ogeyn yacni saansaantiisii aada leedahay. ilaahay ha ku daayo. yacni wasiirkayni Mustafa Dhuxulo guul baan kuu rajeynaa. dowladda Soomaaliyana waxaan u rajeynaynaa inay ilaahay guul siiyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtane nabad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo midnimaan ugu duceynaa. anigoo ah madaalaha Waaberi Cumar Cabdulle Sholle oo maanta nasiib u yeelanay alwasiir Mustafa Dhuxulo oo maanta wasiirka warfaafinta aan hoos nimaado fanaaniinto dhan oo runtii ku nool dalka. waxaan u leenahay kuwa xamar jooga, kuwa dibadda jooga, kuwa anaka nala jooga dhammaan horta waa salaamaya. nasiib ayaan u yeelanay inaan isku aragnay stuudiyahan SNTV oo maanta aan ku kulannay halkan. waxaanu jecelnahay haddaad naqatana ood wadankii ku laabatana hal noogu salaam fanaaniinta gacanta haddaad la gaari karin hataa sidaas iska dhe. markii ugu horeysay ilaa iyo burburkii wasiirka keliya ee runtii u qalma wasaaradda warfaafinta iyo fanaaniinta Soomaaliyeed inuu madax u noqdo aad iyo aad ayaa farxad ay noo tahay. waxaa leenahay saacatul wasiir soo dhawow, waanu ku garab taagannahay. haddaanu dibadda joogno haddaanu nahay kooxdii Waaberi, hoboladii Waaberi ee qaranka Soomaaliyeed, waxaan ku rajaynaynaa guul. ilaahay inuu hawsha aad gashay kula garab galo. والله أدي أذا أقول فرحسنا عاوة معناها محل هذا أن لكلنا وزير كيني يوفود للصعوتي وكمدي هاي أقاسمها قد تلفزيون كسومال ناشونال تي في أن محل هذا أنيكا يحاس كيجا يابتياشي أدرادي أن وحن إذن لنا هاي سود وادا welcome to London. aad ayaan caawa ugu faraxsanahay kulankan qiimaha badan leh ee wasiirkeena warfaafinta noogu yimid London. aad aan ugu faraxsanahay kusoo dhaweynaynaa. insha Allah waxaan jeclaa kulankan kulankiisa inuu magaaladeena Muqdisho noqdo isaga iyo Cabdinaasir agaasimaha guud TV qaranka shaqaalihiisana waa salaamaya aad ma tantiin. sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu kulan la qaatay dhammaan shaqaalaha telefishinka qaranka stuudiyihiisa magaalada London. waxa uuna uga mahadceliyay dadaalka ay ku bixiyeen in ay horumariyaan TV-ga iyo barnaamijyada ka baxa. ugu dambeyntiina wasiirka oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu yiri: bismillaah alxamdulillaah. runtii caawa aad iyo aad aan u faraxsanahay iyadoo runtii booqashada aan ku yimid London kulankii ugu horeeyay oo aan la galo oo ii noqday inaan la kulmo fanaaniintii weyneed oo magaca Soomaaliya ku leedahay oo taqaanaan oo geesayga fadhiya. taana waxay idin tusaysaa ahamiyadda ay fanku leeyahay Soomaaliya. waxaan aaminsanahay dib u dhiska iyo dibadejinta dalka isku soo dhawaashaha inay yihiin fanaaniinta Soomaaliya dadka qaybta ugu weyn ka qaadan kara. sidaas daraadeed ayaan waxaan ka dhigay kulanka ugu horeeyay aan la kulmo jaaliyadda inuu noqdo fanka howlada Waaberi oo taariikh u leh Soomaaliya. dadkii geesayga fadhiyana kulli waa wada taqaanaan. kulanka runtii waxaa fara badan aan isku dhaafsanay, talooyin fara badan oo noo soo jeediyeen anagoo qirsan roolka ay ku leeyihiin runtii dalka kuwa gudaha joogay iyaguba say wada shaqay lahaayeen iyo waliba SNTV iyo warbaahinta dowladdu siday garab uga sii lahayd inay dadkooda
ay fariimo fara badan soo gudbiyaan oo dhanka fanka ah waana wada shaqeyn doonaa insha allahu tacaala xiriirkeenu intaan waa ka badan doonaa waxaana runtii ku casuunay inay dalka dib u soo noqdaan annagoo garab ka sii doona ay booqasho noogu yimaadaan waxaana aaminsanahay inay qaarkood mar hore ay noo imaan doonaan waxaan si gaar ugu mahadcelinaa SNTV bahda London siday noogu soo qabanqaabiyeen barnaamijkan iyagoo habeen maalmo dalka dadka u shaqeeya waa mahadsantiin idinkana thank you Yusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London